السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركلة أرضية مالي ونكسن هي مالي كله وحنا نسقوص النقطة إنه مالي كله قاعدنا عشر كني ICT جاها فصل كسيدات chapter كي أفراد مالي تهورا أم حيسد هورا وحنا نقصه هذا من chapter 4 وحنا كل جنيني أما نصور شجعنا نكو قاعدنا دونا وحلا إلى هذا أنت فيروس عن إنترنت maalinta hore hadaynu ka soo sheekeynay antiviruska iyo steps loo install gareysto iyo faa'iidooyinkiisa maanta waxaan qaadan doonaa waxa la yiraahdo internet markaan leeyahay inta badan waa mareeg aad u taqaanaan oo caana oo arday walba iyo qof walba fahansan yahay sida loo isticmaalo iyo waxay tahay marka balhintis guud baynu ka bixin doonaa internetku waxa uu yahay meeshuu ka yimiday siyaabaha loo isticmaalo faa'iidada bulshada uu leeyahay intayna casharkeena bilaaban waxa sameynaysaa waxa ila daawada fariin wasaaradda caafimaadka inooga timiday oo ka hortaga cudurka coronavirus tiish ama facility ama suxulkaaga ku dabool afkaaga iyo sankaaga marka aad qufacaysid ama hindhisaysid facility-ga ama tiishka aad isticmaashay ku rid weelka qashinka oo dabool leh marka loo wanaagsan in arday hadaynu casharkeena toos u bilowno saan horeyd ku soo sheegay waa chapter 4 lesson 2 internet 4.2 internet waxaan dhigan doonaa what is the internet maxaa la yiraahdaa hadaynu qeexno markaynu chapterkaasi dhameeyno ardaygu waxa uu awood u yeelan doonaa inuu fahmi karo what is the internet maxaa la yiraahdaa pointiga labaad waxa uu yahay explain a brief history of the internet in macnaha uu sheegi doono taariikhihi kala duwanaa uu soo maray maxaa la yiraahdaa internetkan maanta inuu isticmaalno qof walba iyo xaafad kasta yaala baynu sheegi doonaa markaynu chapterka dhameeyno arday kasta marka wuxuu awood u yeelan doonaa labada hintis ama labada points in meesha ku soo sheegnay hadaynu si toos ah u bilowno internet maxaa la yiraahdaa internet intaynaan bilaabin what is a network maxaa uu yahay waxaan leenahay network weedika arkay inta badan wadiga marka telefoon ku hadlayso ama qof la hadlayso waxa aragtay inaad tiraahdo network waxa iga baxay antenna maxaa la yiraahdaa waa shayga tusaale ahaan mobilkaaga halka sare shayada noocaas ee tagtaagan ee meesha sare taagan marka kuwan maxay tilmaamayaan antennada shaygaas inuu joogo oo shaqeynaya maxaa la yiraahdaa mobilkaaga marka network is a collection of computer and devices waxaan leenahay network waxa la yiraahdaa waa collection of computer and devices connected together waa shayada isku wada xirxiran oo say isku xiran yihiin mobilka isticmaasho muxuu isticmaalaa sim card markaad rabto inaad ku hadasho sim cardka yahaga shirkadda Gulis maxay isticmaashaa computeradaas maxay isticmaalaa internetdaas meel kale ku xiran satellite saas marka waa maxay waa collection of computer and devices connected together waa shay isku xirxiran ba marka network la yiraahdaa sidoo kale waxa loo isticmaalaa often wirelessly qofku wuxuu isticmaalayaa isagoo shayga aan lahayn maxay cable oo inta badan wadiga arkay computerkaaga marka isticmaalaysa internetka ku xirnayso waxaad u isticmaashaa wireless mobilkaagu waa lamid wireless macnaheedu maxay tahay without a cable waa xarig la'aan bad shayga isticmaalaysa this one marka waxaan leenahay via communication devices and transmission medias soo kale inagoo isticmaalayna communication devices waxyaalaha lagu wada xiriiro ee mobilku ku jiro computerada ay ku jiraan waxyaalahaas oo dhan iyo waxa la yiraahdo iyo transmission media shayadaas aad arkaysaan ee isku wada xiran imka sawirka meesha kaga muuqda waxa uu tilmaamayaa network maxay tahay waxba isku wada xirxiran computer CPU computer kale serverkii printerskii wixii way isku wada xireen marka network marka la leenahay waa shay isku wada xiran waa devices isku wada xirxiran ba ardayo waxaan leenahay waxa la yiraahdaa network waa yahay pointiga ku xiga hadaynu aragno waxaynu qaadanaa waa kii muhiimkii what is the internet maxaa la yiraahdaa waa mareegta aad garanaysaa caan ka ahayd bal definition ma sameyn doonaa internetku muxuu yahay internet marka la leenahay waa shayga inta badan isku xira deviceska adduunyada yaalo dhan waxaas maxay yihiin mobilada computerada dadka shayadaas dhan aynu wada isticmaalayno waxay ku wada xiriiraan waa mareeg sahasha in dunidii maanta ay wada xiriirto ama ay noqoto qurfatan waaxida room kaliya hal room kaliya in adduunyada noqoto shayga sahlay baa waxa la yiraahdaa internet hadaynu qeexno the internet is a worldwide collection of networks
waxaan leenahay world wide connection of networks waa adduunyo ama waa mareeg isku wada xirxiran waa net waa shay isku wada xiran kan buu ku xiran yahay kan buu ku xiran yahay shayyaas isku wada xirxiran baa waxaan leenahay waa world wide collection of networks waa network ama waa mareegta isku xidha adduunyada that links maxay isku xidhaa million of business ya badan intaasoo milyan oo business isku xidha governments iyo intaasoo governments government agencies maxay yihiin intaasoo dawladood baa markaa wadaaga waxyaalaha aynu sheegnay internetkaas ay u wadaagaan fariimo iyo warbixino isku dira sidoo kale maxay isticmaalaa educational institutions wasaaradihii warbixinadii iskooladii waxaasoo dhan internet bay isticmaalaan oo waa wax maanta sahlay adigoo arday oo meel kale jooga ama magaalo kale jooga in warbixintan hadda meesha aynu ku akhriyayna ICT-ga fasalka 8 ee ku soo gaarto marka educational institutions iyagoo isticmaalaya linkiga internetka waa waxay sameynayaan TV-yada lagu soo mariyo page-ka wasaaradda aad ka hesho YouTube-ka aad ka hesho waxaasoo dhan baa helaysaa marka sidoo kale aan individuals iyo qofku si shakhsiyan buu isticmaali karaa social media marka mareegta waxaasoo dhan isku xiraysa baa waxa la yiraahdaa internet waa worldwide connection of networks waa mareegta adduunyada isku xirta taasoo isku xirta business ganacsiyo badan oo sidee ganacsiyada isku xirta waxa laga yaabaa qofku isagoo halka fadhiya in Dubai ama meel kale uu ka alaab uu ka dalbado qofka ganacsadihii wuxuu sameeyaa isagoo halkan fadhiya waxa laga yaabaa alaabtii iyo sawiradoodii iyo wixii uu heli karo iyadoo sahlaysa marka internet government agencies waa isku mid wadinka arka wasaaradda waxbarashada ee Puntland waxa laga wasaaradda waxbarashada federaalka inay la hadasho iyadoo aan u tagin iyadoo isticmaalaysa marka maxay la yiraahdaa internet educational institutions waa la mid tusaale fudud baan soo qaadano waa kan sawirkan iyo cashiradan ku soo gaarayaan aan individuals adigu gooni baa u isticmaashayo adiga asxaabtaada iyo dadka family-gaaga aad kula hadasho waxa marka adduunyada noocaas isku wada xiraya ee dadka noocaas isku wada xiraya waxaan leenahay waxa la yiraahdaa internet sawirka meesha kaaga muuqda hada arkayso maxaa ku qoran warbixino badan maxaa isku xiran kombiyuutarro badan shay'o badan waxaasoo dhan baa isku wada xiran marka waxaasi mareegta ku sahlaysa isku wada xiraysa baa waxaynu u bixinaynaa marka internet marka maanta kadib hadii lagu weydiiyo internet intaas aanu leenahay marka why people use internet maxay dadku u isticmaalaan internetka questions badan ba marka meesha points badan baynu soo qornay maxay yihiin people use internet for variety of reasons siyaabo kala duwan bay u isticmaalaan maxaa kamid ah communication wada xiriir oo wanaga hadda wada hadlayna oo adiga cashir ka fiirsan communication this one internet baa sahlay research inay sameeyaan maxay an access information warbixin inaad baarto internetka intaad gasho buugaag iyo cashir iyo information inaad soo baarto shopping oo adiga arkay habka online-ka ah ee wax lagu iibsado ee adiga inta badan ama habka college-yada ee online-ka wax lagu dhigto oo adiga inta badan ka dhigta oo maxaa kamid ah tusaale ahaan cilmi kaasa marka dhiganaysa cilmi online college oo maxaa lagu soo gudbiyaa inta badan fariimo iyo warbixino hab online ah adigoo isticmaalaya shopping baa sameynaysa maxaa sameynaysa in aad wax ka dalbato suuqi saami online adigoo xaafadaada fadhiya waxa lagu keenaya marka informationkii dhaweeya kamid ah in dhaweeya dalbato waxay isticmaalayaan dhaweeye internet bay marka isticmaalayaan this one waxa soo dhan baa waxaan leenahay baa ay dadku isticmaalaan inta badan shopping bankiska way isticmaalaan oo markay bankiga soo dhiganna waxaan kombiyuutaradu waxa weeyaan asal nerve center waxba isku xiraan bangiyada adduunyada kala duwan yaala waxa isku xirayaan marka leenahay banki aan inventory-sku way isticmaalaan marka iyagna internetka pointiga kale waxa uu yahay online trades in la sameeyo marka ganacsiyadii habkii online-ka ahaa baynu isticmaalnaa internetka entertainment-ka oo isticmaalnaayo YouTube-ka hadaad gasho adiga inta badan arkay social media isticmaalaysa fiiriyo fanisa arkaysa waxyaalaha comments-ka baad daawanaysaa waxa soo dhamaan inta badan internetka oo isticmaalnaa download videos inaynu fiiriyada ku download gareysano oo cashirkan adiga aad xaafadada fadhiya download gareysanaya this one marka sidoo kale waxa uu sahlaa share information in warbixin aan wadaagno oo hadda waxa aad soo gaarsiinaya cashirkan waxa uu yahay marka internet web applications-ka warbixinada iyo information-nadii aan ka helno baa la mid ah marka waxa meesha ku taxan oo dhan waxaan leenahay waxa loo isticmaalaa internetka hadii lagu weydiiyo sababaha inta badan internetka ama dadku ay u isticmaalaan buugaagta maxaa kamid ah inta badan internetka maxaa kamid ah
pointska badan ee meesha aynu ku soo taxnay kuwa kamid ah sheegaysa 2 iyo 3 waxa intii awoodada ah baa markaa sheegaysa this one hadii intaas ay tahay waxa leeyahay network and internet markaan leeyahay network and internet waxaan ka hadli doonaa wixii la oranay social media waa ka aad baa u garanaysaa social media maxaa kamid ah Facebook kii caanka ahaa ee familiar ka aynu ku ahayn Facebook sheekh Facebook maxaa kamid ah WhatsApp waxyaalahaas oo dhan sidoo kale maxaa kamid ah Twitter kii email Instagram kii kuwaas la yiraahdo social network sites kuwan dad gooniya iska leh laakiin maxay ku xiran yihiin ama maxaa markaa rabtaa inaad isticmaalaysaa internet baa kuu sahladay markaa inaad hesho shaygan fariin ku soo gaadho Facebook aad samaysato qof aad la hadasho WhatsApp aad fariin ku dirto waxaas oo dhan waxaan u isticmaalnaa marka inta badan maxaa la yiraahdaa social networkski marka social networkski maxay yihiin faa'iidadoodu ama maxay yihiin iyagoo internet isticmaalay waxaan leenahay encourages member of share their interest areas, stories, photos, audio and videos with other registered users. Meesha kaga muuqata sawirkii Facebook hadda meesha ku saaran laakiin maxaa la yiri encourages dadka sida positive ka u isticmaala maxay tahay encourages member of share the interest in waxa encourage ama social media waxa encourage ku sameeyay in qofku uu sameyn karo maxay the ideas iyo fikirka uu lahaa inuu marka bulshada la wadaagi karo sheekooyin haduu hayo inuu site-kiisa soo qori karo Facebook ama Twitter ka ama wuxuu doono cod haduu hayo WhatsApp ku diri karo videos uu soo gelin karo social media ama YouTube ki with registered users isoo qofku ayo u diraya dadkii userka macnaha friendskiisa ah meesha ugu jiray baa aynu leenahay wuxuu encourage ku sameeyay marka aynu qofku wixii ama warbixinada iyo informationada iyo interestkiisa sawirada iyo wixii uu hayay uu bulshada la wadaago marka social network sites hadii wax laga weydiiyo ama faa'iidada sheeg lagu dhaahdo encourages member of share their interest intaas kaaga filan waxa loogu talagalay marka inta badan ay wadaagaan ama dadka ay u wadaagaan inay dhiirigeliso in qofku fikirka uu hayo ama sawirka uu hayo ama videoga uu hayo uu la wadaagi karo marka bulshada saaxiibadii ah ama bulshada family-giisa isagoo marinaya social media uu isticmaalay this one hadii intaas ay tahay social networks waxaan leenahay world wide web maxaa la yiraahdaa world wide web inta badan is abbreviated ama abbreviated waxa loo soo gaabsadaa saddexda W arkayso world wide web refers to the collection of public website connected to the internet waxaan leenahay waa mareeg ku sahasha in lagu ururiyo waxa la yiraahdo public websites oo public websites ka maxaa kamid ah ka meesha kugu qoran muxuu yahay sheekh Google ama facebook.com kan muxuu yahay kan waxaan leenahay waa public website waa site uu qof samaystay marka waxaanu adeegsanaa this one saddexdii W baynu hor dhiganaa www.facebook.com this one marka .com inta badan commercial baa loo isticmaalaa marka tan maxay sahlaysaa in qofkii marka uu heli karo public websites oo this one marka qeex lagu raado maxay ma u taagan tahay world wide web inta badan waxyaalaha loo isticmaalo waa waxa ku sahlaya site-ka inaad isticmaali karto ama waxa ku sahlaya inaad booqan karto wixii public websites-ka internet-ka ku jiray waxa kamid sidoo kale Google baa kamid ah hadii su'aaliyo information aad weydiinayso de Google iskama aadi karto maxaa sameynaysaa marka hore waa www.google.com aad ku qorto waa inuu sawirkiisa ku soo baxo information-kii warbixinta aad rabtay markaas waa inaad meesha ku qorato marka hadii lagu weydiiyo world wide web maxaa la yiraahdaa abbreviated waxa u taagantaa ama loo soo gaabsadaa saddexda W meesha kugu qoran hadii lagu weydiiyo definition-keedu maxuu yahay ama waxa loo isticmaalaa waxaan leenahay waxaan ku qeexanaa collection of public websites waa ururinta lagu ururiyay meel ama internet-ka dhexdiisa public websites-ka ay kamid ahaayeen Google-kii Facebook-kii shayadii marka aynu isticmaalino dhan tusaale sheeg hadii lagu raahdana ka meesha kaaga muuqday lagu soo dajiyay ama lagu soo qoray baa marka ay qoraysaa marka intaas haday tahay world wide web waxaan leenahay taariikh nuuciyo marka internet-ka soo maray shaygan sahlaya in public websites-ka la booqdo shaygan ku sahlaya in ganacsi aad ku samaysan karto maxaa la yiraahdaa information-kaagi shaygan ku sahlaya in warbixin aad heli karto waxaan leenahay si kooban u sheeganay isagoo faahfaahsan waqti kala dhigan doontaa waxaan oranaynaa marka form 3 gaad dhiganaysaa taariikhaha internet-ku lahaa waxaan leenahay taariikhda internet-ku waxay ka timiday wax la yiraahdo ARPANET oo loo soo gaabsaday Advanced Research Project Agency Network oo ahaa shayga Google oo ahaa bundiga maxaa la yiraahdaa ARPANET inta badan wadiga meesha ka arkaya waxa la yiraahdaa in Advanced Research Project Agency and Network
ama network baa loo soo gaabsaday marka ARPANET waxay tahay waa shaygii gundhiga u ahaa ama asaaska u ahaa in la helo internetka maanta aynu isticmaalo marka in the internet originated as the ARPANET internetku waxa uu ka yimiday meeshaasi ama mashruucaasi ARPANET la yiraahdo sanadku markuu ahaa 1969 and had two main goals muhiimadda ugu weyn ee inta badan internetka loo sameeyay laba shay bay ahaayeen one allows scientists waxa uu ku ogolaanayaa ama waxa uu inta badan dadka saynisyahannada wax ikhtiraacaya waqtiyadaasi noolaa u ogolaanayay at different physical location to share information and work together inay noqon karaan kuwa warbixin iyo information wadaag marka allows scientists at different physical location dadka saynisyahannada meelaha kala duwan jooga wadamada kala duwan jooga ama qaaradaha kala duwan inay sameyn karaan maxay share information work together iyagoo markaa wada shaqeynaya oranay fikirkaas soo baxay noocaasi saamayntiisa waxyaalahaas marka iyagu wadaagaya baa inta badan waxyaalihii loo aasaasay ka mid ahayd pointiga labaad waxa uu ahaa function even if the part of the network were disabled or destroyed by disaster pointiga labaadna waxa uu ahaa in la helo macnaha in shay dhinac uu ka shaqeyn karo internetku tusaale ahaan qaarada adduunka oo dhan ku jira qaarada Yurub ama America haddii tusaale ahaan uu ka xumaado internetku deegaankeenu wuxuu noqonayaa marka effective mid shaqeynaya meel kooban haddii aynu inagoo isticmaalno bariga dhexe uu internetku ka halaabo ama internetku ka joogsado inagu waa shaqeynaa marka muhiimadaha loo sameeyay waxay ahayd inta badan in la heli karo in dhinac uu ka shaqeyn karo haddii meel kale uu ka xumaado natural disasters ka ay effect gareeyaan internetka in marka uu adduunyada kale isticmaali karto marka haddii internet lagu weydiiyo meesha uu ka yimiday waxa leenahay marka mashruucaas uu ka yimiday oo la yiraahdo ARPANET Advanced Research Project Agency Network oo loo soo gaabsaday kaas aynu leenahay marka ujeedooyinkii loo soo galiyayna labada point bay marka ku soo koobanaa pointiga kaasi ku xiga waxa uu yahay waxaanu ka hadlaynaa marka taariikhda internetku lahaay in January 01 1983 sanadku markuu ahaa January bishi kowdeedii 1983 baa waxa loo asteeyay maalinta uu internetku dhashay the official 1969 waa markii la ikhtiraacay tijaabooyin baa ku socday laakiin 1983 hadaad maqasho 01 January waxa leenahay waxa loo asteeyay the birthday the official birthday of the internet maalintii uu dhashay internetku hadii wax laga what are the official birthday of the internet this one tamba sheegaysa marka 1983 maalintaas loo asteeyay in muhiimaduna waxay ahayd inta ka hor ma jirin marka standard way ay u wada xiriiraan kombiyuutarada adduunka kala duwan yaala tijaaba markaas socotay ARPANET-ka mashruucaas aasaas u ahaa laakiin goorma lagu guuleystay in la helo internet dadka oo dhan ay wada isticmaali karaan waxay isticmaaleen marka 1983 01 January markaas loo asteeyay ama la helay shay isku xiri kara kombiyuutarada yaala adduunka kala duwan sawirka meesha kaaga muuqata maxaa ku qoran waa dad different places jooga meelo kala duwan jooga maxay isticmaalayaan waxa isku xiray waa internet iyagoo warbixino isku mid ah marka adeegsanaya marka this one hadii ay tahay maalintii uu internetku dhashay waxaan leenahay intaasi waxaan ku soo gabagabeynaa casharkeena qaybtiisii koowaad qaybtiisii labaad oo nagu hadlanay internetka qaybtiisii horena waxaan uga soo hadalnay antiviruska internetku marka waxaanu inoo dhiman oo maalmaha dambe ka hadli doonaa faa'iidooyinkii uu lahaa marka internetku inta kaliya marka inooga dhiman chapterka marka chapterka qaybtiisa labaad questionska ku qoran waxa ku qoran ama waxay tahay questionska lagu weydiin rabaa what is the network maxaa la yiraahdaa pointiga labaad waxa uu yahay define the internetka inuu maanta dhan soo sheegnay baa sheegaysaa waxa uu yahay pointiga saddexaad waxa uu yahay why people use internet dadku soo waxa internetka u isticmaalaan maxay tahay fariimo badan baynu soo taxanay kuwiiba wax ka sheegi doontaa questionka afraad waxa uu yahay what are the social network sites maxay yihiin kuwa ka sheeg define gareena social network sites waa noocaasi marka tusaale soo qaado questionka ugu dambeeya ardayda casharkeena qaybtiisii labaad oo internetka aynu uga hadlaynay waxa lagu yiri as a short si kooban waxa qortaa what is the history of internet taariikhda internetku lahaa baa markaa qoraysa adigoo ka soo bilaabaya meesha internetku ka soo bilaabmay marka qaybtaasi waxaanu ku soo gabagabeynaa ardayda casharkeena qaybtiisii labaad waxaan rajaynayaa inaad fahanteen wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh COVID-19 waxa uu ku faafaa marka qofka cudurka qaba uu hadlo ama qufaco ama hindhiso oo dhibcaha ka soo baxa neefmareenkiisa ay gaaraan qof kale waxa kale oo ku gudbi karaa marka dadku taabtaan gacmahooda meel kale oo jeermi saaran yahay kadibna gacmahooda oo xambaarsan ay ku taabtaan indhaha iyo afkooda